boqortooyada dalka Sacuudiga ayaa soo saartay arrimo la yaab leh oo ka dhan ah dumarka ku nool dalkaasi Sacuudiga. Arrimahan ay soo saartay xukuumadda dalka Sacuudiga oo ay Carabta iyo dunida muslimiinta la fajaceen ayaan war idinkaga haya. Haddii ay tahay markii ugu horeysay ee soo booqato page-ka YouTube-ka Amiir Suleymaan, fadlan nagu soo biiro follow dheh, like-tan hay nagala bakhiilin, waxay inoo tahay sharaf iyo dhiirigelin. muuqaalkan inoo share garay oo si gaarsii saaxiibadaada aad ayaad u mahadsantahay. Xukuumadda dalka Sacuudiga ayaa la timid qorshe la yaab leh oo su'aalo badan dhaliyay ka oo aan dalka Sacuudiga hore looga baran. boqortooyada dalka Sacuudiga ayaa ahayd halka diin ahaan iyo dhaqan ahaanba lagu ilaaliyo laguna taxadaro gabdhaha iyo dumarkaba, iyadoo oo dambi weyn ka ahayd dalkaasi in lagu arko gabar bannaan sidoo kaleetana wareegaysa ama dhex socota wadooyinka waaweyn haddii aysan la socon qof muxram ah sida walaalkeed, saygeeda ama waalidkeeda ama qof rag ah u aadan xagga waalidnimada. hase ahaatee dalkaasi aan ka soo sheekeeyay oo gabdhaha uu ilaalin jiray sharaf ahaan iyo cizi ahaan, diin ahaan intaba, hadda sidaasi waa uu ka duwan yahay. boqortooyada dalka Sacuudiga ayaa sheegtay inay u baahan tahay ku dhawaad 9,000 oo macallimiin dumar ah kuwaas oo ardayda iskuulaha gabdhaha bara musiga iyo qoobka ciyaarka. macallimiinta 9,000 ee looga baahan yahay dalka Sacuudiga ayay waxay barayaan ardayda sida loo ciyaaro musiga, qoobka ciyaarka iyo sidoo kale heesaha. Sacuudiga oo dal ahaan dal muslim ah, sunni ah, sidoo kalena ay ku yaalaan goobaha dunida ugu karaamada iyo ciziga badan leh sida Kacbada. 2 milyan oo muslimiin ay u cibaado tagaan sanadkii ayay dunida muslimka arrinkan ay ku dhawaaqday aad uga dhaliileen. Sacuudiga sanadadii ugu dambeeyay waxa uu soo saaray qodobo ka dhan ah dumarka iyo haweenka ku nool dalkaasi, iyadoo la ogolaaday in gabdhaha dalkaasi ku nool ay banaanka u soo bixi karaan, sidoo kalena ay daawan karaan tartanka kubadda cagta ee ka dhaca dalkaasi, iyo inay gaari ku dhex wada karaan wadooyinka waaweyn ee magaalada dhexdeeda. taas oo markii hore mamnuuc ka ahayd aan looga ogolayn dalka Sacuudiga inay gabar kaligeed banaanka u baxdo, sidoo kalena ay gaari ku dhex wadato bartamaha magaalada. qodobadaas oo dalka Sacuudiga aad ugu cusbaa waayadii dambe, haddana waxaa timid qodobkan kale oo ay dad muslimiin ah iyo dalka Sacuudiga gudihiisa qaar ka mid ahba ay aad ula fajaceen, sidoo kalena dhaliyay faalo, dood iyo muran. haddii aad intaan la soo gaartay muuqaalka share sina gaarsii saaxiibadaada, wixii talo iyo tusaale waxaad nooga reebi kartaa qaybta faalada. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.